wafdi wasiiro oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Wafdigan wasiirada oo muddooyinkii u dambeeyay kormeero kala duwan ku kala bixinayay gobolada bariga Soomaaliland ayaa maanta waxa ay kormeero kala duwan ku soo mareen meelo ka tirsan magaalada Burco oo ay ka mid tahay seelada xoolaha Burco, kastanka beereed, kastanka Burco iyo qaar ka mid ah xafiisyada wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Intaasi kadib ayaa wasiiradan ka koobnaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale iyo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Cismaan Geeljire iyo taliyaha ilaalada xeebaha Soomaaliland ay kulan foolka foola la yeesheen guddida ganacsatada ee gobolka Togdheer kaasoo lagaga hadlayay cashuurihii dhawaan lagu kordhiyay ganacsatada iyo sida ay u bixiyaan. kulankaasi oo loo galeen saxaafadda ayaa waxaa kadib uga warbixiyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale kaasoo sheegay in kulankan ay la yeesheen ganacsatada ay kaga wada hadlayeen sidii loo bixin lahaa cashuuraha iyo macaashka iyo waliba sidii loo dardargelin lahaa howlaha wasaaradda maaliyadda iyo jaangoynta miisaaniyaddii dalka oo dhawaan uu sheegay wasiirku inay rajeynayaan inay soo hordhigaan golaha wakiilada Soomaaliland waxaana uu sheegay in socdaalkiisana ay qayb ka tahay sidii uu xogogaal ugu noqon lahaa qiimeyn ugu sameyn lahaa xafiisyada wasaaradda maaliyadda. wasiirka arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi kuwada socday wasaaradda maaliyadda madaxdeeda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo dadka ilaalada xeebaha safarkaas oo maalintiisii shanaad ama lixaad maanta ku jiro oo goobo runtii kala duwan iyo dowlado kala duwan aan soo maray ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay waxaan ku sugnay magaalada gobolka Togdheer waxaan soo maray customiska iyo cashuuraha bixiyay gudaha gobolkan gaar ahaan magaalooyinka Aynabo beer iyo Burco customs oo yaalaan sidoo kale cashuuraha bixiyay magaalada Burco waxaan soo maray maanta dhowr meelood ay ka mid yihiin meelo muhiim oo istiraatiiji ah oo dhaqaalaha dalka iyo dowladaha ummadda dakhligeeda kaga xoolaha oo runtii kaga caalami ah oo dadkeena xoolihii gaar ahaan arigii si xoog loo iibsanayay ayaa muddo saacadaad ku sugnay duruufta ka jirta iyo xoolaha iyo aad iyo aad u badnaa aan runtii la koobi karin shaqadooda aan dhulka ku dhacayn dad ku dhacaysay boqolaal kun neef oo ayaa ku sugnaa aad iyo aad u farxad weyn oo tani waa dakhli weyn oo dadkeena shaqada soo gelaya dowladda soo gelaya wax kaloo maanta soo maray garoonka diyaaradaha ee oo runtii haweeney ka socoto lawdii hawshaana ay dowladda maaliyadda loo qaban tahay sidoo kale goobo mashruuca soo maray xafiisyada kala duwan wasaaradda maaliyadda ay leedahay galabta waxaan ballansanahay guddida horumarinta gobolka iyo waxqabadka gobolka ka wadaan aan runtii la soo eegi doono iyo warshada dowla oo magaalada Burco ku yaala waxaan maanta kulan dheer oo saacado badan qaatay wada yeelanay guddida ganacsatada iyo guud ahaan ganacsatada gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada caasimadda ee Burco oo dad ilaa 7 qof ah aan kulan isugu nimid saacad la socotay banaan wada hadal aad u dheer kulankaasi wuxuu ahaa oo sababtiisu ay ahayd in baayac musharka iyo tijaarta iyo mataqaanaa cashuurta laga qaado si guudba ah loo wada hadalo cashuuraha ku waajibiyay si bixin lahayd hadday tahay cashuuraha kala duwan kuwa kasta mise kuwa cashuuraha weliga sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dalka sidii cashuurtaasi si sax loo bixin lahaa oo wixii lumaya loo ilaalin lahaa ama aan wax loo lumin si wanaagsan baan isku qaadanay dhankooda dadka iyaguna dareenkooda iyo cabashooyin wixii ay tabanayeen bay runtii noo sheegeen oo marka qaarkood ay runtii tilmaamayeen inay si wanaagsan u bixiyaan khadamaad ay u baahan yihiin waxyaabaha qaarkood si wanaagsan loo qaado iyo wax lamida aad iyo aad baan isku afgaranay kulankaas aad iyo aad qiimo badan buu ahaa si wanaagsan baana runtii wasaaradda maaliyadda iyo wafdigii aan wada socday wasaaradda kalluumaysiga runtii u wada hadalay dadka tujaarta ah baayac musharka kala duwan baayac mustarsan dhexdeeda goosaba iyo guud ahaan guddida ka kooban gobolka leeyahay ee tujaarta ama guddida baayac musharka oo hawla iyo ragba lahaa kulankaasi oo runtii markii dambana kulan qada ahaa
عادي أو إنه بدنا ويسافر كرشاء ويسفهمنا وضل كان يعني لو ضيل هذه الدول وتلو عشوطة مثل بحنا تلقوا المسيو يسفهم عادي وين يا بنتي الحمري وحنا في حلو إني دور المعبود هذا دور كتب الحصول هاي دور كسناجبة إن عشوره كسر مسؤول يعني الحمد لله يسبل ونكسب عبد الساق فارح عبد الله شبكة عالمية عنب نيوز برعو.